Okay, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Axmed Xasan. Kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. Muuqaalkeena maanta waxaan ku eegi doonaa qaabka ama sida loo sameeyo testerayaasha sawirada ama qaabka loo design gareeyo testera. Haddaba testeru waa maxay? Waa qaabkan sawirada loogu sameeyo. Inta badan waxaa isticmaala sawirlayaasha ayaa isticmaala. Waa qaabkan hadda idiin muuqda aan idin tusinayo weeyaan. Qaabka sida loo sameeyo ayaan muuqaalka maanta ku eegi doonaa. hadday tahay markii ugu horeysay soo boqoto channelka fadlan subscribe saar sidoo kale muuqaalkana like saar siina share garee oo la wadaag dhammaan asxaabtaada ama cidii u baahan wixii tale iyo tusaale aad noo haysana waxaad noogu reebi kartaa qaybta commentiska sababtoo waxay noo tahay dhiirigelin. Okay, haddaan muuqaalkeena guda galo waxaan ku dhufanaynaa xaggaas ay ku qoran tahay file then waxaan leenahay new waxaan furanaynaa tab cusub sidan ayaa ku soo bixi markii sidan oo kale ku soo baxdo waxaad ku dhufan xagga ay ku qoran tahay print then warqadaha ku soo bixi marka hadda waxa warqado weyn waa letter somartid waa A5 A6 A4 A3 marka warqadan waxaan ku dhufanaynaa A5 tan ku dhufanaynaa then create baan leenahay meel kale wax kale ma bedelino inta badan waan soo baranay cashiraantii hore waxyaabaan ku soo barbaranay. Okay, kaliya ta halkaas oo kale tusaalaan hadii macnaha sawiradan ay yihiin sawirada soo saaraysid waxaad ku dhufan xagga ay ku qoran tahay CMYK color laakiin hadda waxaan rabnaa inaan social media ama meelahaas aan ku yar isticmaalo soo waxaan ku deeninaa RGB color then create baan leenahay. Okay, wakaas hadda labada warqadood waa isku size kaliya tani way soo zoom garaysan tahay taynan cusubna waan soo zoom garaynaa xagee laga zoom gareeyaa marka wata xagga calaamada ay ku qoran tahay zoom tool soo ma jeedaan ayaad ku dhufani then right click baad leedahay fit on screen wakaas soo markaan hadda way noo soo weynaatay soo ma. Okay, waxaan teginaa marka file baan teginaa open baan leenahay waxaan soo saaranaynaa sawirkii soo ma. Okay, sawirkii waa kan then open baan leenahay. Okay, isaguna tab cusub ayuu noo yimid soo ma. Okay, calaamada drag-tan ku dhufanayna ama xagan saddexda calaamadood baan imanaynaa then maxaan dooranay saddexda calaamadood markaan ku dhuftay waxaan doortay crop tool baan doortay waan iska crop garayn maadaama sawirkaygu aad u weyn yahay inta aanan u baahnayn ayaan iska crop garayn kaliya inagu maxaan u baahanahay sawirka soo ma. Okay, xagana xogaa waan soo yarjiidanaa then intaaba noogu daa marka. Okay, waan leenahay. Okay, kadib waxaan ku dhufanaa calaamada smooth toolka ama drag toolka labadaba ka u taqaano then double click baad ku dhufan sawirka ayaad ku dhufan ama waad yara jiidi adigoo haya left click adigoo haya then waxa ku soo bixi sidan oo kale waxaad ku sii dhufan convert to normal layer then waad jiidi xageen geenina marka warqadeeni waan keeninaa waa kaas soo ma jeedaan hada waxoogaa waan yara weynayay. Okay, inta badan maxaa laga dhigaa sawiraantan ama 4 sawir baa laga dhigaa ama 6 sawir. Okay, hadda u jeedaan sawirkii kaliya ma meeshii yaala soo ma. Okay, sawirkan maxaan ku dareynaa color yar oo stroke ah si macnaha hadhow marka la jarayo si aan sawirka loo jarin sawiraan yar ama waxaan ka wadaa color yar baa ayaa dhinacyada ka marka colorka lagu sameeyo dhinacyada geesiska ayaa waxa la dhahaa stroke. Okay, xageen ka soo saarana inagoo saa u select garaysanay sawirkeeni ayaa waxaan ku dhufanaa xaggan hoosta ay ku qoran tahay effects-ta then waxaan ku sii dhufanaa ka stroke soo ma jeedaan stroke baan ku dhufanaa wakaas hadda waa blue soo ma jeedaan. Okay, colorka xaggeeda ka bedeli midkii kula qurux badnaad ka dhigi ama madow ama kala blue then hadda maadaama blue inoo yahay bluegaasaan ku deynina stroke garayntana xagganaad ka weyneyn kartaa hadda line-ka size-kiisa xagganaad ka weyneyn kartaa soo martiin haddaan hadda weyneeyo sawirkii oo dhan buu qaranaya soo. Okay, 18 kaasaan ku deynina haddaad rabto inaad outside ka dhigto inside ka hadda waa kaas guduhu soo galay haddaad rabto inaad outside ka dhigto xaggan baad ka bedeli outside haddaad rabto maxaad ka dhigi center baad ka dhigi labadaba adigu kii kula qurux badnaada. Okay, baan leenahay. Okay, hadda waa kaas waan dhamaystirnay soo ma. Okay, stroke ayaan ka dhiginaa outside inside kii baan ku daayay. Okay, center soo ma outside baan ka dhiginaa marka. Okay, baan leenahay. Okay, marka waxaan rabnaa mar labaad intaan file tagno open then sawirkii haddaan soo qaadano isla sidii aan u sameeyno waqti bay naga dhici kaliya maxaan sameeynaa kana select garaynayna then waxaan taabanaynaa control J waa copy garayn. Okay, wii copy soo aragtaan waan jiidi soo aragtaan. Okay, kan baan yarayna xogaa waan yarayna. Okay, kana sidoo kale
xaggan aan kasoo yaray. Okay, hadda maxaan samayn, labadan aan haddana select garayn, labadoodan ayaan select garayn. ma select garay, waxaan taaban haddana control J baan taaban, iyagana waan koobiyey. Okay, hoos iisugu jid, hoos iigu jid. Okay, okay, hadda waxaad ujeedaa haddii labadan aan select garayno, labadan haddaan select garayno oon iyagana control J nidhaano, aan koobiyeyno, hoostan geyno, inooma la eg soo marti sawirkee weyn, kuwanaan weyneyna sooma. Okay, waan yaraynaa, sizekooda maan yaraynaa, control J, control J, in control J, ama kan keliya select garee, iska delete garee. Okay, kan inoo yaree marka, kanaan yaraynaynaa, xaggana xagaa ka soo celi. Okay, waa kaas sooma, intaasaan gudaynaynaa. Dan control J, inoo koobiye, xaggan u jid. Okay, kanna soo jid. Okay, labadoodaba select garee, ma select gareysa, control J dha marka, control J, hoos u soo jiid, xaggaaba ku dah, xaggaa kor in yar u jiid. Okay, labadoodana select garee, control J. ma tiri sorry, nooma select gareysna sooma, nooma select gareysna. hadda way select gareysan yihiin, control J. Okay, hoos u jiid. Okay, okay, hadda waan dhammaystirnay. maxay ku kala duwan yihiin? farqiga saas u dhaxeeya inuu jiro malin keliya, waxay ku kala duwan yihiin stroke, colorkan yar ee geeska ah, kan waxoogaa waa thicknesskiisa yar, kan thicknesskiisa weyn sooma. intaan bay ku kala duwan yihiin. marka insha Allah waxaan rajeynayaa inaad ka bogateen muuqaalkan. intaas ayuu noogu ogyahay. marka hadday tahay markii ugu horeysay aad soo booqato channelka, fadlan subscribe saar, sidoo kale muuqaalkana like saar, sababtoo like waxay naga caawinaysaa inuu muuqaalku dad fara badan gaaro. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan.